بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوميها محكمة السرع بروفيسور آدم حاج علي أقسمها جندي وزارة عرمها بالشدة الشقابة محمد علي هرمودك كلية الشرعية جامعة هرقيسة محمد فارح iyo gudoomiyaha ururka qaranada Soomaaliland Sola Maxamed Timo dhamaan markii sharafta qiimaha badan ee halkan ka soo qayb gashay shirkeenan maanta rag iyo haweenba xubnaha inagala jooga bulshada caalamka ururada bulshada saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii waxaan marka hore aad uga mahadcelinaynaa dhammaan dadka halkan fadhiya ee soo ajiibay inay nagala qayb qaataan shirkan muhiimka ah ee aynu ku eegi doono xaaladda cadaaladda iyo xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland. shirkan waa shir laba cishay noo socon doona waxaa lagu lafaguri doonaa xaaladda garsoorka iyo cadaaladda iyo xaaladda xuquuqul insaanka halka ay marayso. waxaa halkan isugu yimid ururada bulshada rayidka ah ee ka shaqeeya mawaadiicda aynu soo sheegnay iyo mas'uuliyiintii ugu sarreeyay qaranka oo maanta halkan inala fadhiyo chief of justice-kii qaranka. marka waa shir xog waraysi horta uu asalkiisu yahay waa shir ka mid a shirarkii dalladda ururada bulshada reer Somaliland ee Soonsaf ay qaban jirtay. waana laba mawduuc oo mudan runtii in laga wada hadlo halkay marayaan maxay u baahan yihiin halkeebay u baahan yihiin laga taageero maxaa khaladaad ay yimaada sidee u dhacaan inaan waxaas oo dhan si cilmiyaysan oo ku qotanta xaqiiq inaynu macluumaad ku wadaagno inta shaqada gacanta ku haysa iyo inteeda u igman inay korka kala socoto oo ay wixii ay ku fiirinaysaa ku fiiriyaan. shirkan bayskiisu wuxuu noqon doonaa in uu ku qotomo xaqaa'iq facts and figures oon ahayn intuu qofku soo istaago inuu yidhaahdo waxaasaa sidaasa waxaan xaqiiq u hayn. waxaa ka reeba shirkan beebaraa laga jeedin doonaa macluumaad la soo diyaariyey oo xaqaa'iqiisa iyo sourceskiisu ay sugan yihiin ba halkan bulshada rayidka ah iyo laamaha kala duwan ee qaranka ee hawshan gacanta ku haya ay halkan isku weydaarsan doona. ugu dambayntana wuxuu noqon doonaa shir Somaliland ahaan dal ahaan warbixinta ka soo baxda ay wax ka tarto waxaynu u baahannahay iyo muuqaalka aynu uga baahannahay inay cadaaladdeenu ekaato xuquuqda bini'aadmiga dhowristiisu siday aynu rabno inay u ekaato shiray ka soo baxda ay noqon doonto. marka runtii waxaan halkan aad ugu soo dhaweynayaa dhammaan dadka halkan ka soo qayb galay laba cisho shirkii noo socon doonaa panelist baa jiri doona runtii kala duwan waana kala horeyn doonaa panelistkaas. panelada waxaa ka mid noqon doona oo halkan iyaguna inoo iman doona commissionka xuquuqul insaanka ee qaranka ururada xuquuqul insaanka ee madaxa bannaan maxkamadaha wasaaradaha cadaaladda civil society intaas presentations bay jeedin doonaan. mar walba presentation la jeediyana su'aalaha la iska weydiin doonaa discussion bay nooga abuuri doonaa. ugu dambayntana waxaa ka soo bixi doonta warbixin ka turjunta waxyaalaha ay u baahan yihiin labada mawduuc in laga qabto. aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu